Hello akhyaaray, assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Kusoo dhawaada kanaalkeena Fahamtech. Maanta casharkeena waxa weeye software la yiraahdo Free Video Maker, kaas oo ah in aad video ku bedesho audio aad kaga dhigto ama aad audio video dul saarto, iyo weliba intaad video bila codha aad cod dul saarto kuna codayn karto videogii aad cod aad adigu leedahay saari karto. Haddaba daawasho wacan baad leeyahay asxaabay. marka aad furto browserka internetka gashalka waxaad ku qoraysaa freemake.com ayaad ku qoraysaa freemake.com kadibna enter ayaad oranaysaa. enter marka tira softwarekan ayaa ku soo baxay kadibna halkaas ayaad ku dhufanaysaa. marka aad ku dhufato wuxuu ku geenayaa halkii aad ka download gareyn lahayd ama meeshii aad ka download gareyn lahayd softwareka. kadib waad download garanaysaa, waxaanaad download garanaysaa sidii programyada hore oo kale. waad installation ayaad ku sameynaysaa, full installation baad ku sameynaysaa. markaad installationka dhamayso ee aad dhamayso installationka, shaashada wuxuu kugu sameynayaa shortcut ayuu kugu sameynayaa desktopka. kadib marka download ayuu igu leeyahay already wuu anigu digsan yahay, laakiin mar labaad aan download garay haddana waa kaas user ayuu diiday markaas. kadibna markaad installation ku sameyso kadib saas ayuu ku oran luqad dooro ayuu ku oranayaa. kadib English ta aniga ii dooran ayaan ku deynaya okay ayaan siinaya, waan installation ayaan ku sameynaya. anigu barnaamijka hore igu digsan yahay waa barnaamijkaas, laakiin haddii aan mar labaad ku celiyo installationka kadibna next ayaan baad oranaysaa. sida uu ku shubaya marka waa aragtaan asxaabay, uu inoogu shubaya softwareku inoogu shubaya mar labaad ayuu inoogu shubaya. haddaba waqti yar ayuu qaadanayaa, boosta ayaan yar qabanaya intaa uu inoo dhameynayo installationka. marka waan isku soo laabanaa insha allah. waa kaa dhameeya asxaabay, kadibna finish ayuun baad oranaysaa. finish marka aad tiraahdo saas ayuu software ku dhamaaday aad ku install garaysay akhyaaray. waxuu diiday ana kii hore ayaa kugu jiray weli error ayaa dhacay markaas. way noo dhameeyay asxaabay. kadib softwareka ayaan soo kicinaa, waa kaas softwareka waa kan yar halkaas waa ka saaran shaashada Freemake Video Converter ayaa la dhahaa. kadib waa soo kicinaysaa. markaa soo kiciso qaabxan sidan oo kale ayuu kugu soo kacaya. markuu sidan oo kale kugu soo kaco waxaa kuu soo gelisay inaad video soo gelisaan ama audio DVD photo iyo aral intaba. kadibna inagu video ayaan soo gelinaa. markaas videogan ayaad qaadaysaa, kadib video double click baad siinaysaa. kadib halkan ayuu imanayaa. markuu yimaado videoga waa kaas waxaan u bedelayaa imika video audio ayaan u bedelayaa. tusaale ahaan mp3 ayaan u bedelayaa. kadib markaan ku dhufto calaamadahan oo si mid kamid aan ku dhufto kadibna convert ayaan oranayaa. convert markaan idhaahdo waa aragtaan si degdeg ayuu ku bedelay videogu intuu doono ha la ekaado. kadibna nimanka uu dhameeyay waxaan oranayaa show folder barta aad dhigtay tus ayaan oranayaa. wakaas halkaas ayuu dhigay. markii hore video buu ahaa, imikana waa audio. wakaas audio haddii aynu dhageysano audio ahaan ayuu ku soo baxayaa. marka videogu marka hore wuxuu ahaa cod aan u casharan ka sameeyay. markaas waa aragtaan codka waa maqlaysan baan u malaynayaa. markaas kadib marka aan ka baxan ka san iska idhaahdo habkaas ayaa loogu bedelaa. video ayaad ugu bedelaysaa, maxay ahaato waxaad ugu bedelaysaa cod ayaad ka dhigaysaa, audio ayaad ka dhigaysaa, amaba intaad audio soo qaada ayaad waxa aad dul saaraysaa video. haddii aynu soo gelino sawir ama aynu sawir dul saarno video oo kale, imika waxaan damcay inaan sawir soo qaado oo kale, in aan sawir soo qaado ama aan kadibna aan cod dul saaro. kadib waxaan soo dooranayaa photo ayaan soo dooranayaa. markaan photo kan ayaan soo dooranaya tusaale ahaanba ka photo marka halkaas soo geliyo waxaan doonayaa inaan audio soo qaado. kadib waxaan dooranayaa audio aan soo qaaday, kadibna audio aan dooranayaa. kadibna audio ayaan soo qaadayaa. markaan audio iyo photo istu dhigo waxaan leeyahay video ga sameeyay baan oranayaa.
converter iyo moranaya kadibna continue ayaan oranaya ujeeda maamulay siyar degdeg isagana ku bedelaya oo inuu convert garanaya maxay tahay videogii waxaan u jeedaa sawirkii iyo awgii iyo soo saaray kadibna wuxuu ka sameeyay video dhameystiran u dhameeyay marka waxa oranaya show folder ayaan oranaya waarta halkaas slash photo slash show buu kadibna double click ayaan ku siinayaa oo jeedina sidii u soo baxday maxay ahayd video ay soo baxday markii hore photo khaas ahayd imakana waxaan ka dhignay video ayaan ka dhignay codka oo maqlaysan baan maranayaa sidaana waxa loogu dul saaraa maxay ahayd video sawir baa lagaga dhigayaa maxay ahayd video dhameystiran oo cod aad u saartay iyo qaybo kale oo fara badan insha Allah qaybaha kale oo sharaxi doona inta ku koobna waxa jirta oo kale in aad maxay ahayd video aad si kale u habayso si waxaan u habayso maxay ahayd aad ka jarto watermark-kan amaba loogadan aad ka jarto waxyaabo fara badan oo kale insha Allah casharka waxaan ku sharaxi doonaa intaasaan ku dhaafayaa ilaawina channel subscribe like assalamu alaykum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh